barnaamijka ka socda Hargeysa indhowba ka socday oo ah dhiska jaamicatul qur'aan al-cadiim oo imika hadda guryo kira ku jira laakiin culimadii wadanku kulkay isku yimaadeen iyo dadkii muxsiniinta ay isku yimaadeen ay u arkeen in la dhiso jaamicad waqfi ah oo ummadda ka dhaxaysa oo gobolada oo dhan ardaydeedu hadba sidii loogu nidaamay ay u soo galaan oo qof cid shakhsi ah oo leh aanay jirin magaceeduna yahay jaamicatul qur'aan al-cadiim hadda imika jaamicadu way furan tahay laakiin guri ayay ku furan tahay waxaad ogtihiin dalkeenu soo maray qur'aanku maraaxil buu soo maray maraaxilkii ugu horreysay oo ahaa meesha qur'aanka lagu dhigtaa in la odhan jiray ama gole ama dugsi la odhan jiray oo wax dhisa haba yaraatay aanay lahayn markii dambe tadawur dadku sameeyey ee baadiyihii yacni magaalo loo soo guuray girgida yaryar oo girgidaha kuwa ugu fool xun ee ugu liita ah ayaa haddana lagu qaban jiray ardaydu xataa ma ay heli jirin waxay ku fadhiistaan ma ayna heli jirin taasoo arrintaas oo in muddo badan dadku ka fikiri jireen in ardada qur'aanka dhigata oo waqtigaa kol dambe loo bixiyey halkii berigii hore dugsi ama gole la odhan jiray malacaamad loo bixiyey oo malacaamaddu ay ka dhigan tahay uun maclama meeshii wax lagu baranayay uun ay ka dhigan tahay in la sameeyey marka dadku wuxuu aad iyo aad u dareemi jiray in sida dugsiyada kale ee dawliga ah loo nidaamiyo oo aqallo fiican ay dhisaan arrintaasi muddo badan bay jiitamaysay laakiin sanadihii u dambeeyey way hirgashay in dhulka madaariska qur'aanka lagu baranayo ama maktabiyada qur'aanka lagu baranayo in tadawur lagu sameeyo oo guryo qurux badan laga dhigo waxaa kaloo iminka inagu soo biirtay in la aasaasay oo Hargeysa iminka laga aasaasay muddo sanadaba furnayd jaamicatul qur'aan al-cadiim oo jaamicatul qur'aan al-cadiim ayna ku koobnayn xifdiga qur'aanka oo kaliya ayna ku koobnayn إن علومتي شرعية هاي هذه حديث تاي هذه فقه تاي هذه العلوم العربية أي تاي هذه أي تاي علم جيت الجود كقرآن قريدي سوقي أي تاي إلى هالكائن الجالسي سنتي لوكي ضد محسنين أي وقفية سيدا ورك عن كل هاي وحضرك يسأل لوك هاللو وقفية قيمة يسوي حلقو قيمين كرامي لها قاد كذا حلا بقولوا كون جارية سبع بقولوا كون أو دولار جارية مركا أنت لوك وقفية ما هي أنت نيك لو حلا ينوجبها هي إنه جامعة القرآن العظيم إن كقيب قاضي لما قبل هذا ذاتك الجوجا كقيب قاتان ذاتك دبد الجوجا إما كلا يلاحظه قل جوج يقرب الجوج بالله يلاقي قل جوج يقرب الجوج لما لقى قيب قاتان ذاتك المحسنين تني والبويحي أود يسا إلهي درسي أو لبح أو كقيب قاتان وحجنا وحياة خير عظيمة أو ذاتك أي فضيت سلام كل كهراء وأنا دريمين لكن ما أنت أقول ما ضه قفكوا على وحنا ورجنا مساجد بدن intay dhismeen dad aan dareemaynin masaajidka maalintii la furayay ay yiraahdeen masaajidkan agteeda laga dhisay oo hebel inta baxshay hebel oo aan shilinaba aan baxsay masaajidana khayrka masaajidadu ma dhamaadaan ka qayb galo waqtigiisa jaariga oo ka qayb gal marka waxaan soo jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed ama dalkeena gudihiisa Soomaaliland ha joogo ama gobolada kale ee ha joogaan dibadda dadka jooga muxsiniinta joogta inay ka qayb qaataan jaamicada qur'aanka cadiimka ah dhiskeeda inay ka qayb qaataan